dadka qaar si kala laga inuu fahmaan wuxuu ku leeyahay kitaabka quraanka wax kasta uu ku yaala waxa kale ee la sii raadin muxuu yahay ilaahay soo madhin ma faradna fil kitaabi min shay wa sax ma faradna fil kitaabi min shay laakiin waxa ogaataa isla kitaabka sidaas ah waxyaabo uu sheegina jirta ee way saalay soo farjin aayadan iyo waxa ku jira wuxuuna kitaabku sheegin inuuna wax kitaabku uu sheegin ay jiraan waxa kugu daliil meel kale kama keenayno nabiga sallallahu alayhi wasallam muaad ibn jabal yuu yaman u diray markaas wuxuu ku yiri maxaad ku xukumaysaa dadka markaas wuxuu yiri fa bi kitaabillahi kitaabki ilaahay baan ku xukumaaya markaas waxa lagu yiri fa in lam tajid hadaadan ka helin ka waran soo wax laga waayay kara ma rasuulka wuxuu leeyahay muaadow hadaad arintan aad sheegayso fa in lam tajid kitaabka hadaad ka weydo wuxuu yiri fa bi sunnati rasuulillah rasuulka sunnadiisa hadana ka raadinaya markaas hadana waxa lagu yiri fa in lam tajid sunnadiina waad ka weyday marka fiir waxa jira wax laga weynaay kitaabkii laga weynaayo oo sunnadii laga weynaayo see la yeelaa marka oo hadaan yeelay bal tusaale ahaan keen inaga Soomaaliyeed dhaha haye qofka madaxweynaha inoo noqonaya inta sano ee uu madaxweynenimadka loo imanaayo ee uu madaxweyne ahaanayo waa meeqa sano waa 5 sano bal aayad quraana ka soo saar jamhuuriyadda Soomaal ra'iisuha muddatu 5 sanawaat aayad kuma jirto xadiisna kuma jiro maxaa la sameeyay marka waxa la sameeynayaa muxuu yiri muaad ibn jabal fa in lam tajid kadib muxuu yiri ajtahidu wala aalu wuxuu yiri waan dadaalaya mana ka gaabinaa inaan dadaalo oo wax umada anfacaaya oo kitaabkii iyo sunnadiina aan khilaafsanayn inaan keeno marka waa la keeni karaa yaani waxa la fiirinayaa kitaabkii iyo sunnadii ma khilaafsan yahay ayaa la fiirinayaa aayadan ma farna fil kitaab min shay mufassiriinta qaar waxay ku fasireen si uu isaga hor imaanin diintu isaga hor imaanin waxay dhan waa lawhul mahfuudka waxa la sheegayo ma farna fil kitaab min shay inta la sheegayaba waa lawhul mahfuudka wax kasta ku yaalan laakiin kitaabkan quraanka wax badan oo ku olin ayaa jirta midaa wuxuu u fahmay ogtahay in wax walba laga helayo la isku mar dhigo ogtahay wax aan yaani aadan helaynin mid ingiriisi waxa la mid oo saas oo aaminsan ma farna fil kitaab min shay waxba loogama tagin dhaay ya is arkeen xunana kitaabkeena wax ka soo sheega markaas uu kitaabkiina wax ka soo sheega ha magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas uu magaca adiga wuxuu yiri cook ayaa la dhahaa wa tarakuuka la bishoogaysaa wa tarakuuka cook ma sheegaysa magaci ninka ingiriisiga oo meesha ka soo saaray oo tarakuuka ah marka meesha waxa la rabaa yaani in la fahmo ma farna fil kitaab shay waxa loo jeedaa waa lawhul mahfuudka wax ka soo sheega laakiin kitaabkeena quraanka fa in lam tajid ayaa ku jirta taas waa mid kale waxay tahay kitaabadan inoo qoran fiqiga ah safiinaha ka soo bilow sheekh ayaa qoray faslun hada kan faslun fasal waaye oo inoo qoray nawaaqidul wudu'i faraa'idul wudu'i mubtilatu salati wuu qoray minhaajka sheekha qoray wuu sharxay waa wax la qoray ogaada laakiin waxa laga soo istinbaaday oo laga soo bixiyay kitaabku wuxuu inoo ogol yahay marka wixii aan xalaal iyo xaraan ahayn wada mesela khamradu waa xaraan ribadu waa xaraan zinadu waa xaraan hadii dastuur la sameeyay intii la dhahoyado adduunka maanta gaalaha haysatee bangiyada ribay ku shaqeeyaan aan ribada xalaalayno inagoo Soomaaliland dhahana dhaqaalaha si uu kobco gaalada bangiyadeeda ribada isticmaala ayaan la shaqeysanaynaa saas daraadeed ribadu way bannaan tahay qaar dhahan oo saa ku soo qoraan lagama yeelay maxaa yeelay taxliilka iyo tahriimka ilaahay baa iska leh wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halal wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhib laakiin ka waram hadaan dejisana qaanuunka la yiraahdo qaanuun tawdiif al-amal shaqada dadka sida loo siiyo waxay mesela wasaaradda meeshaan ay taala shaqaale inay qaadatay rabtaa hadii aan qaanuun loo sameeyay shaqaalaha lagu qaato waxa iimaanaysa qofkii maamulo looga dhigo wasaaraddaas inta ilma adeerka ay yihiin la inuu ku qoro shaqaala tahay adna shaqaala kulli wada shaqaala ka dhigo war sidaan maxay tahay maxay ahaan lahayd wasiirka maxaa 4.5 soo lagu ma qaybsan wasaaradda annaga iska leh war sidaas ma aha wasaarad ummaday ka dhaxaysa canshuur dadka laga qaaday ayay wasaaraduhu ku socdaan saas daraadeed dadka shaqada laga siinaayo qaanuun la isku og yahay waa in loo sameeyo qaanuunkaas dadka shaqo siintooda ah waan sameeynaynaa
وحاجر قانون ليراد مثلا قانون المرور ودوين كسيل لو مرا هذا مثلا جد كان هرتين مرا أفجوي هذا بابورتو مركا أي مرايان لبا دناعي كلا مران كي أفجوي وصعد دنك ميدكتو مرا كأفجوي كي معضينا دنك بدحذو مرا وإسقرب صعدان مركا هدي مثلا كو أفجوي وصعد انتو كبحو دناع ميدكتاه أو دناع كلا أو مرو تذكرون محيدها هذا واسكال قبسنا والاسكامرا موجي لكن محل له بابور كاس شرع الدراي وضد كمرايا أو سيد كيسي أما دنعيسي معه هدي ترافق أي قبطه محيدها مخالف وكجرا وحو خلافي قانونكي أو وضد اللي قمر لها جناح على قضايا هذا ترى هذا قف كان بقول كن أشل الصومالي على قاضي محل لو قاضي آيات دل لو قاضي هذا ترى آيات جناح شيء جيسة وكل هاي بقول كن على قاضي قف كجيت كأفجوي يسقو دنعي كلا كمرايا ده مهليسد حديثنا مهليسد لكن هذا صار لون نظامين شلال كبابورتا يسكون عيا بدنايا ساس درادت وحي معناها dadku ay waxooda ku nidaamsanayaan nabigu wuxuu yiri antum a'lamu bi umuri dunyakum adduunyada nisaa u dhaqanaysan idinka taqaanaan laakiin waxaan la ogolayn wax shariicada khilaafsan hadda inaga Soomaali hadaan nahay burburkii kadib wax un dawlad la isku soo yara aadiyo waxa laga soo bilaabaa 2000 shirki carta waxa qaban qaabi oo ogtiin Soomaalida ayaan taariikhda maxay ku fiicneen ma ogi waxa qaban qaabi dad bulsho rayid ah oo culimo ay hogaaminayaan oo hogaami kooxadeedii xilligaas jiray qayb kama ayna ahayn waxa isku aadiyay odayaashii dhaqanka ganacsatadii culimadii waa shirki carta waa ogtiin soo ku dhacay markii la qoraayay dastuurka waxa lagu qoray oo ilaa hadaba ku taala ay qaanuun يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر باطلا قضب كستا أو شريعة الإسلام ككهر إيمانايا وحكم الجيران يا مركب صومالي شريعة وحنا يا كل حكم كره كأوقف فاسق سندي لك كانوا بولشة أيوج هاي إن الشريعة أوقشها هذه سؤال ويديو هذا وطن كم حد كل حكم يسا هذا هو فاسق هذا لوجي هاي أموريانا محودها يا شريعة ولا ما تابتان شريعة لوج حكمها meeshaas fiir wala soo gaarsiyo mas'uul soo gaarsiyo in la fuliyo la dhiman ee dadka fikir ahaan dadka dhan waxa laga dhaadhiciyay shariicada islaamka muslimaan nahay wax kale oo anfacaya ma jiro ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wuxuu ilaahay soo dejiyay raaca wuxuu ilaahay soo dejiyay wixii sidaas loo sheegay oo xalaal iyo xaraan iyo ku saabsan waa sidaas wixii nidaamin iyo ku saabsan xagee la maraa iyo beeraha see loo qotaa iyo jawiga see diyaaradaha loo kala hagaayo baabuurtu say ku kala socdaan iyo see shaqada markii dadka la siinayo loo kala nidaamiyaa iyo intaas waa inoo ogol yahay intaas markaan ka soo gudubno oo dastuurnimada mushkil ma leh waxa lagu qoray in baa la fiirinayo ay noqoto hal arrin oo waxa inoo soo hartay hal mas'alo oo lagu baabacay oo meesha Soomaaliya ay dhahdaan faraha looga gubtay ayaa ayadana jirta arrintaasi culays weyn ee dadka ku haysa oo ah يعني دولة نمتك Soomaaliya hadaan nahay dawlad nimadkeenu way cusub tahay oo madaxweynihii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ayaa dadka intooda badan ay soo gaareen aadan cad Allahu naxariisay mar dhow ayuu dhintay waa madaxweynihii ugu horeeyay marka taariikhdeenu taariikh dheer ma ah isticmaalkii inta laga soo imaaday iyo waqti dheer ma in badanna fawda ayaan ku jirnay waxa mushkil ugu qabtay marka wixii aan soo arki jirnay ayaa wax wuxuu ahaa shariicada aan ku toosnayn maxaa yeelay shariicada dadkii ku toosin lahaana diyaar ma ayna ahayn dadkii inooga tagay xukunkana isticmaar ayuu ahaa kharashkan ayaga bixin jiray meeshun baa laga sii waday markii la soo qaado yani shariicadiiba ayadoo hirgashay oo lagu dhaqmay ma aynan arag waa uu la isiryanay waa uu la isbuursanay mar la fariistay oo isku toostay oo geeska gees nidaamku intuu wada gaaray alxamdulillah dadku ma ayna arag waxay soo arki jireen bay ahayd waxa la arkay marka caalamka kale markaad fiirisid iyo inaga markaad fiirisid horta dawladdu maxay ku dhaqantaa su'aal la isweydiinaa haye maxay xukuntaa markaas waxa la midaan mashruuca xukuntaa mise waxay xukuntaa qaanuun wadci ah waxa dadku soo degdegaysa markiiba ma qaanuun wadci xukuman su'aala meeshan baatay marka qofkii xukuma qaanuun wadci ah xukunkiisu muxuu yahay dadku waxa u sahlan marka oo fudud aayadaha hadaan akhrinayno oo ay naftooda aan xoog kor istaagayna aayada koobaad wama lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikumul kafirun yani qofkii xukumi waa wuxuu ilaahay soo dajiyay fa ulaikumul kafirun waa gaalo aayada kale maxay leedahay fa ulaikumul zalimun fa ulaikumul fasiqun saddex aayado isdaba yaala Soomaa
hooriskooda markaad fiirisid isku wax kumayna dhammaanin midna waxay ku dhammaatay kaafiruun mid waxay ku dhammaatay dhaalimuun midna waxay ku dhammaatay faasiquun halkaana su'aal ka imaatay marka